kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamij kale oo ka mid ah barnaamijyadii xidhiidhka haya ku saabsanaa taariikhda Soomaalida. Barnaamijkana waxa weeyaan kii 16aad Axmed Inoblow. toddobaadkii hore intiinina dhegaysanaysay waxaanu idin maqashiinay Allah u naxariistay Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal oo ka hadlayay siyaasadii dawladdii uu hogaaminayay ee rayidkayd kuna saabsanayd dhulkii Soomaalidu ay sheeganaysay ee Kenya iyo Ethiopia. sheegashadaasi waxa nagu celiyay waxay ahayd Cabdilaahi Yuusuf Axmed oo aanu waraysi dheera oo aanu la yeelanay uu ku sheegeen arrinta dhulka Soomaalidu sheeganaysay ay ka mid ahayd sababihii Maxamed Siyaad Barre uu doonayay inuu Cabdilaahi Yuusuf ku qanciyo inuu ka mid noqdo saraakiishii afgambigii sanadkii 1969 samaysay. haddaba waxa la isweydiin karaa muxuu ahaa mowqifkii askartii inqilaabka ku dhigtay dawladdii rayidkayd marka la eego dhulkii Soomaalidu ay sheeganaysay. Maxamed Siyaad Barre oo arrintaasi ka hadlayay bilowgii 1970 waxa uu yidhi dalalka Soomaaliyeed oo maqan horay baanu u sheegnay in ay ilaa aanu doonayno inay ku soo biiraan dalkii hooyo. taas waxay la tahay wax qarsoon ma aha. haddaba habka lagu doonayaa waa kee awalan siyaasad kaligeed meel fariisan kartaa ma jiro. siyaasad kaleeto iyo ama dhasha ama ku xiran tahay. siyaasadda weyn anagu aan qabnaa marka waxa weeye meelo badan baa Afrika laga gumaysanaya. Afrikana waxaan is leenahay xornimo siyaasiya waxun waa ka haysa laakiin xornimadu runta ah siyaasi kaliya ma aha way ka sii ballaaran tahay. waxa weeye dhaqaalaha waxa weeye sancada waxa weeye macaamilka iyo isku tagga waxa weeye qaybta xaqa inay ka qaadato adduunka maamulka la maamulayo ayaan daro kama qaadatay waa loo taliya marba tala la goosta ku soo filinta. marka waxa weeye markii taasu ay nagu jirto Afrikaanimo weyn oo ay nagu jirto haddana waxa ka dhaxeeya annaga iyo wixii jiraan ka naga sidee baa loo maamulayaa weeye hadalku. waxay marka taas nagu dhalinaysaa awalan dad ahaan iyo dawlad ahaan ma aaminsanin dad Afrikaan in inta banaatiikh isugu dhiibaan ajnabi ay isku baabaashaanin ma aaminsanin annagu. dhiiga Afrikaanku intii la dhaqaalayn karo in la dhaqaaleeyaan qabna. marka dantii Soomaaliyeed Soomaali weyn waa joogtaa. marka waxa weeye siyaasaddanadu inaanu ku wadno ilaa aakhir laxda waanan ka gaarayna aad baan ugu kalsoonahay si sharaf leh oo dawaa'ilkaas dalalkii Soomaaliyeed qaarkood haysta iyagana aan ceeb ku ahayn annagana aan dilan ugu ahayn inaanu wax u qaybsano wax naga dhaxeeya oo aanu ka gaarno caqligu inuu taliyo intii qorigu iyo ninka ajnabiga oo isticmaalkooda daaqada taagan intay talin lahaayeen caqliga Afrikaanku inuu taliyo hasa taliye markaa inuu ku taliyo mid roon oo ay u aayaan ilmaha Soomaaliyeed dambe saas baanu annaga ay noogu dhisaalaysantaa. kaasi wuxuu ahaa Maxamed Siyaad Barre oo ka hadlayay siyaasadda dawladdiisu waxay noqonaysaa waqtigii militariga oo talada waddanka Soomaaliya ay la wareegeen. sida haddaba imika laga dheregsan yahay arrintaasi waxa ay ku dhamaatay Soomaaliya oo Maxamed Siyaad Barre uu hogaaminayo oo ku duushay Ethiopia sanadkii 1977 dagaalkaasi oo Soomaaliya lagu soo jebiyay inkastoo guulo la yaab leh ciidamadii Soomaalidu bilowgii dagaalkaasi ay gaareen. hase yeeshee Soomaaliya in dagaalkaasi lagu soo jebiyo waxa inta badan loo aanaya taageeradii Ethiopia ay ka heshay wadamadii dalkii midowga Soviet la oran jiray uu hogaaminayay. laakiin Durraan Axmed Xaashi oo isagu ka mid ahaa madaxdii jabhadii la oran jiray WSLF wakiilna marowga ahaan jiray qaaradda Yurub oo waraysi arrintaas oo aanu kala yeelanay sanadkii 1984 waxa uu qabay waqtigaasi taageerada Ethiopia la siiyay kasakow in dhibaatooyin kale ayaguna ay jireen oo ka mid ahaa sababihii keenay sidii dagaalkii 1977 iyo 78 Soomaaliya loogu soo jebiyay. hadalkiisina waxa uu ahaa sida tan dagaalkaas ama dib u dhaca sababo badan buu lahaa. sababahaas oo ah qoodihii waaweynaa ama bari iyo galbeed balaha oo soo galay dagaalkii Geeska Afrika oo aan ka leexleexanin sidii caadadu u ahayd inay la jiraan xagga imperatooreeda Ethiopia iyo siyaasadii ay ku dhaqmeeyeen mas'uuliyiinta maamulka Soomaaliyeed maanta jirta oo haba yaraatee aan u ogolaanin dadkii ka halgamayay waddanka ee iyagu aayahooda u dirirayay inay noqdaan kuwa mas'ala halgankooda.
dareenka uu muujiyey duraan axmed xaashi oo ahaa in dadkii waddanka loogu tegay aan la tixgelin oo aan talada waxba laga siinin taasuna ay abuurtay caloolxumo waxaa isaguna ku raacsan cumar salaad cilmi oo ka mid ahaa madaxdii dowladda soomaalidu ay u xil saartay maamulka deegaanadii la xoreynayey isaga oo arrintaasi ka hadlayana waxa uu cumar salaad yidhi waxaan markaa mas-uulka ahaa dhulalka la qabto inaan ka dhiso maamulo oo cajaa'ibka noqday waxa weeye markii aanu dalka dhulka la qabtaba meeshii la qabtaba dad diyaara oo kaadirahu ma joogo dad reer miyiya iyo dad xaara gumaysatay oo masaakiinaha loogu taga cid maamul ka dhisi karta lama arko markaasaan maamul waxaan ka kaxayn jirnay shaqaalihii dowladda iyo xisbiga iyo ururada bulshada soomaalida iyo ciidamada ayaanu ka dhignaa guddiyadii wax maamulhay oo meel kasta ka dhisnoo geyni markaasaa dadkii nagu kacoo yidhi mana qabsanayseen mase waadna xoreynayseen ayagiina wax ma dhisan karaan waxyaabaha dhibaatada keentay waxyaabahaasaa ka mid ah inaad adigu ka gees aad dhulkii camirtid oo madax u noqotid oo maamushid oo dhaqaalihii u samaysid administrationka u samaysid haddana waxbaan xoreynaya aad leedahay awooddaaduna intaa ma gaadho markaa meel walba anaaba ka dhisi jiray oo tegi jiray shaqaalihii Soomaaliya joogana carradii geena ku camirna barasaabadii Soomaaliya joogana xaggaasaan geynay kaasi wuxuu ahaa cumar salaad cilmi marka haddaba aynu ka gudubno aragtida ay muujiyeen duraan axmed xaashi oo ka tirsanaa jabhadda WSLF iyo cumar salaad cilmi oo ahaa sida uu sheegay ninkii loo xil saaray inuu wax ka dhiso maamuladii laga sameeyey dhulkii ciidamada Soomaalidu ay ka saareen kuwii Ethiopia intii aan la soo jabin ka hor waxa iyadana aanu isku danay bal inaanu ogaano aragtida qaar ka mid ah raggii madaxda sare ahaa ee militariga Soomaalida hogaaminayay ee dagaalkaasi waday haddii ay ahaan lahayd ujeeddadii dagaalkaasi loo qaaday waxay u arkaan wada shaqayntii militari ee dhexdooda intii dagaalku socday iyo arrin ka dhacday meesha laydhaah garab case oo u dhow magaalada jigjiga waxaanu waraysanay jenaraal cabdiraxmaan caare oo aad loo yaqaano waxaanaanu ka warsanay arrimahaasi waxa hadalkiisa generaalku uu ku bilaabay horta marka ugu horreysa ummadda soomaaliyeed meelay joogtaba waa salaamahayaa ta labaad ciidankii 77 dagaalkii 77 waxaan maanta u soo jeedinahayaa dadkii ku dhintay ilaahay inuu u naxariisto ayaan uga soo jeedinahayaa halkan qoysaskii iyo carruurtii iyo ehladii ay ka tageenna samir iyo iimaan baan mar labaad u rajaynaya dhibaatadaas waxay ahayd in la iska amaalmariyo oo taariikhda ay gasho maxaa yeelay waxay ahayd arrin taariikhi ah arrintaas Soomaalidu ma tixgelin raggii mas-uuliyiintii markaa jirtana arrintaas sidii ay habboonayd taariikhda uguma dhigin wixii ku habboonaana ma ay marin wixii dhintay iyo wixii harayba waxaan kusoo xiri lahaa qodobkaas inay iska adkaystaan Soomaali baa dhibaatadaas ku dhacday kuwii xorriyadda keenay oo xorriyadda dhaliyaba waxay u dhinteen sidaas iyo si kasii liidata ayay u dhinteen oo cid xanaanaysay cid taariikhdeeda dib u eegtay ma ay jirinin waa adigan dhaliilaya lahayn antay sidii laga yeeli lahaa laga miyeel maxaad filaysay waxaan filaynay in horta marka ugu horreysa wax taariikhiya oo weyn baa dhacay in taariikhda Soomaaliya la geliyo oo qoraallo run ah laga sameeyo oo wixii sax ahaa meel la saaro wixii khalad ahaana meel la dhigo lagana faa'iideysto mustaqbalka soo socda arrintaas ayaan filaynay wixii hogaaminahayay ama maaragtay ujeedadeeda keenay oo lahaa iyo wixii ka qayb galana amaalmarintoodii in la siiyo ayaan filahayay anigu taasina sidii habboonayd oo runta ahayd uma dhicin si ka gedisan bay u dhacday inkastoo hadda dadkii aan maaragtay ii sheeg arrintaas ka qayb galay wax laga xusxusay haddana intii ka qayb gashay intii laga xusay iyo intii aan ka qayb galin intii laga xusay intii aan ka qayb galin baa badnayd marka arrintaas intaasaan uga hari lahaa inaysan helinin mudnaantoodii carruurtii iyo qoysaskii iyo eheladii ay ka tageenna aysan helinin amaalmarintii carruurtoodii ku geeriyootay halkaas kuwii dhintana inaan lasoo xusuusano xusuus loo yeelan ayaa meeshaas maaragtay ii sheeg anigu ka dhaliilahaya marka dhaliishaad waktigii hore ujeedaa maya dhaliishaas waktigii hore aan ujeedaa ma hadda dadkaan hadda dembigooda kalaaba ayaga laftigooda ka badani iyaga uma jeedinahaya waxaan u jeedinahayaa waa markii dawladdu ay noo dhisnayd oo dawladdu iyadu ciidanka amartay inay dagaalka galaan oo wax qaran oo la fulinhaya ay ahayd arrintaas oo aan sidii u habboonayd aan isleedahay looma
maamulin ayaan maaragtay dhalishaas u jeedinaya ma ahan uma jeedinayo dadka hadda maanta jooga waxaad ka warantaa bal adigu waxaad ka mid tahay saraakiishii ciidamada hogaaminayay aagee baad joogta adigu beriga anigu waxaan joogay aagga ku aadan maaragtay isha jigjiga ayaan joogay aaggaas jigjigaan joogay dhagax buur laga bilaabo ama goboladan hoose oo dhan laga bilaabo muday ka shisheeya ilaa laga gaarayo dhinacii maaragtay isha dirdhabe halkaasaan jooga anigu jamcaare waxaad ka warantaa maadaama raggii dagaalka ku jiray aad ahayd matalan dhaliil iyo wanaag ba maxaad ka xusuusan kartaa matalan taarikh ahaan adiga maskaxdaada iminka ku dhegan waxaan ka xusuusan karaa aadan horta marka ugu horeysa ciidanku horta sidiisaba wuxuu leeyahay nidaam buu leeyahay waata ciidanku waxaa la rabaa in waxaa adeegsada dawladda dhisan ayaa adeegsata waxaana lagu tilmaamaa inuu yahay ciidanku sidahan saaq ah oo geed inay ku baxaan maahane keligood aan istaagi karin laakiin waajibka koowaad waxa weeye qarannimada Soomaaliyeed in la ilaaliyo ayaa ciidankaas u asaaskiisu ahaa waata marka ujeedadii dagaalka loo galay oo ummadda aan si fiican loogu fasirinin waata dad qaran oo cad oo qeexan oo lasameeyay ay jirin oo dagaalkaas loo galay taasina waxay ahayd khaladkii ugu weynaa oo la galay ayaan anigu u haystaa waxaan ka sheegi karaa waxa weeye laba ujeedda ugu weynayd ciidanka xoogga in la baabi'iyo ayaa ka mid ahayd baan anigu qabaa qof ahaan ujeeddada kalena maalintay munaasib tahay ayaan sheegi doonaa waata qodobka kale oo asaguna kaabahaya waxay ahayd ciidamadu waxay leeyihiin hogaamin bay leeyihiin hadday nabad ku jiraan iyo haddii ay dagaal ku jiraanba waata hogaaminta marka dagaalka lagu jiro waxaa rabaa xagga howlgelinta iyo taakulaynta iyo iskaashiga ciidamadu inay oo taliska guud iyo talisada hogaaminaya ciidamada dagaalka ku jira inay ka dhaxayso ayaa jira oo aan kala go' lahayn waata arrintaasina meel fiican ma ay saarnayn anigu sida aan isleedahay ama sida aan qabo dagaalna waa u ahaa waa daliilaysay marka haddii mar ujeeddadii aysan qeexnayn oo ujeeddo qaran oo siyaasi ah oo cad aysan maaragtay isha meeshaas ku caddayn hogaamintii ama hawlgelin ha ahaato ama taakulayn ha ahaato ama iskaashiga ciidamada ha ahaatee ama isku xiraanshaha shacbigii ilaa mar haddii dagaalku uu dheeraado waxaa uu la adeegsanaya waxa weeye waa shacbiga iyo hantidiisii iyo dadkiisi weeye marka arrintaas maahayn arrin maaragta isku xiran jabhadaa lagu magacaabay jabhadihii iyo waxaa isku milmay iyo ciidankii waa la inkiray baalkii ii sheeg ciidamadii oo meel walba ka dagaalamahayo meel walba laga arkahayo ayaa arrintaas maaragtay ii sheeg la inkiray marka arrintaas aan dhaliil ayaan ka qabaa oo aan ku ogahay inay ka jirto waxaad ka warantaa aan kaa dhex galay jancaar waxaad ka warantaa intii markii laydin soo jebiyey matalan markii ciidamadu jigjiga ay dib uga soo noqdeen waxaa jiray ciidamada soomaalida dhexdooda meesha garab casa la yidhahda baa layidhi in ciidamo ilaa 84 tiradoodu ay gaadhso ciidamada lafahaantooda ka mid ahaa halkaa lagu dilay arrintaas waxay leedahay iyaduna sheekadeeday leedahay 80 iyo dhowr qof baa lagu dilay raggii dilay iyo taladii lagu dilay iyo meeshii lagu dilana waa la wada ogaa raggii ragga ugu fiicnaan bay ahaadeen laakiin maalinteeda unbaa iyadana laga wada hadli doonaa baan u malaynayaa arrintaas laakiin arrintaasi saasay u dhacday amxaarana ma dilin dawladihii dagaalka la soo galay oo dagaalkaas u soo hiiliyey nimankaas dagaalkana dhinaca kale u rogana arrintaas ma ay geysana soomaali baa dhexdeeda geysatay raggii ugu fiicnaa ayaa la soo ururiyey raggaasaana meeshaas ku dhintay allah u naxariisto ma jecli inaan qof dulsha ka saaro ama aan dhibaatadaas maaragtay ii sheeg faahfaahiyo laakiin arrintaas waxay u dhacday ragga ugu fiicnaa inay meeshaas ku dhinteen waa hagaaga kaasi waxa uu ahaa genaraal caare sidii aad maqlayseen genaraal caare waxa uu hadalkiisa bilowgii uu aad u dhaliilay sidii loo gala ciidamadii ka qayb qaatay dagaalkii 1977 kuwii ku dhintay qoysaskoodii iyo abaalmarintii kuwa sida wanaagsan iyagu uga qayb qaatayba cabdiraxmaan jaamac barre oo isagu muddo dheer wasiir arrimaha dibadeed ka ahaa dalka Soomaaliya ayaa isaguna waxa uu aad u dhaliilsan yahay sidii dadkii talada hayay ay yeeleen markii Soomaaliya dagaalkii lagu soo jabiyey isagoo faahfaahinayana waxa uu yidhi Soomaaliya waxay gashay dagaal bay gashay waad ogtahay dawladaha maanta ugu xoog badan ugu dhaqaale badan dagaal mar haddii la galo waxa weeye dagaalkiina dhammaado si kastaba ku dhammaado ama ree ama ha laga adkaado wuxuu leeyahay consequence oo dhaqaale ah aadami ah bashari ah siyaasad ah military ah waxay
dagaalkaasu ifadgaranaya nolosha qarankoo dhan buu ifadgaranaya anigu waxaan u arkayaa khaladka dhacay waxay dabcan waxa weeye Soomaaliya wadan yar bay ahayd waxa weeye dhaqaalaheedii dhaawac weyn baa gaaray muxuu ahaa isku duubnaanteedii iyo intisaanskii waxa gaaray iyadana sadbaag baa ku dhacay waxa soo baxay dhibaatooyin oo muxuu ahaa jidriyaha soo baxay arintaas waxay ahayd aniga waxay keentay markaa dabac baa yaa galay qarankii waxaan qabaa in ay ahayd in la sameeyo reform anigu waa kuu sheegay dadkii madaxweynaha ugu tagay baan ahaa xisbiga dhexdiisa ka jiri wadanka in reform lagu sameeyo askari ahaan siyaasad ahaan dhaqaale ahaan iyo bulsho ahaanba in lagu sameeyo maxay lama dhici karto wadan inta dagaal kaa galay aan dib habeyn lagu samaynin arrintaas ayaan daro ma ayan suuro gelin sidaas aawadeed waxay keentay waxyaalihii wadankii wuxuu noqday dabcan dhaqaalihii hoos buu u dhacay muxuu ahaa noloshii waa adkaatay waxay keentay marka dhibaatooyinka aan kuu tiriyo oo dhan baa reflection keenay lama sixid la'aantaasaa keentay baan qabaa consequences muxuu ahaa kharaar waxaad ka warantaa markaa adigu maadaama aad tiri waqtigaas waxaan doonay in isbeddel la sameeyo waxyaabaha aad jeclayd in la sameeyo maxaa ka mid ahaa amaba aad ku talisay qoraal baan ugu dhiibay xataa ku bixiyay aniga waxay in ciidanka horta dib loo habeeyo ciidanku dagaal buu galay disciplinkii baa dhumay waxa weeye wuu isbedelay ciidankii waxaa marka loo baahnaa in la habeeyo oo intii la hayn karana marxaladdii markaa joogtana la reebo intii kalena muxuuha loo sameeyo nolol dhaqaale loo sameey lahaa nin wadanka oo hero oo wadanka u soo dagaalay iska tag lama dhihi karo in loo sameeyo ilo dhaqaale muasasaad runa loo sameeyo deemad la siiyo beero loo furo badda loo furo training la siiyo yani rehabilitation loo sameeyo ayay ahayd hoggaanka xisbiga iyo dowladdana la bedelo oo reform lagu sameeyo weeye ayagana oo ah iyadoo la raacayo siyaasadda cusub oo marxaladda cusub oo wadanku galay oo aan ahayn marxaladdii hore oo haddee iska smoothka ahayd oo caadiga ahayd in muxuu ahaa xaalad ku salaysan isbeddel ku salaysan waaqiciga markaa jiray markaa adigu markaa maxamed siyaad barre iyo dowladdii moola tagto arrintaas maxamed siyaad waa lagu diiday asagaaba lahaa asagu waxaan kuu sheegayaa markay dhaceen golihii dhuxuu isugu yeeray resignation buu u dhiibay wuxuu yidhi dagaalka kan anaa hogaamiyey dagaalkii waan ku najaxnay laakiin quwad naga xoog badan baa soo baxday therefore mar hadday saas tahay anigu maadaama aan ahaa head of statekii waa inaan anigu consequencada qaataa therefore waxaan rabaa inaan iscasilo casilaadiina waa ii dhibay ciddii aad ku bedelanayseen fariista doorta waa lagu diiday goorma ahayd taariikhdaasi goorma ahayd dee waxay ahayd 1977 rag isaga ku xigay ugu waaweynaa oo madaxweyne ku-xigeenka ahaa waxaan xusuusnahay hadal uu yidhi oo waa kuu sheegayaa uu yidhi nin oo raggii ahaa political bureauga madaxweyne ku-xigeenna ahaa oo sifahuu siiyey wuxuu yidhi maanta soomaaliya gebi bay saaran tahay gebi intay saaran tahay miyaad nooga dhaqaaqaysaa buu yidhi ma kaa yeelayno waa tahay reformkiina lama qaban oo waa la diiday madaxweynuhu inuu asagu iska bilaabana waa la diiday barnaamijkiina caawa intaas ayaanu ku soo gebagabaynaa tan iyo kulantideenna dambe hadduu eebarhaablil ka noqdo axadda dambe waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgeli